bahda warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa saaka shir jiraayad ay ku qabteen magaalada Burco waxa ay kaga hadleen xariga loo geystay wariye Maxamed Aadan Dirir Soocan oo telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel uga soo warramay jiray magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar waxaana lagu soo warramayaa in wariyuhu ku jiray muddo dhan 8 casho xabsiga magaalada Caynab isla markaasina ay ciidamada bilayska Soomaaliland ay xabsiga u taxaabeen asagoo ku guda jira waajibaadkiisa shaqo waa kuwan suxufiyiintaas oo baaqaasi diraya maanta ay bishu tahay bishii saddexaad tobankeedii waxaan halkan isugu nimi inaan cambaarayno wariye Maxamed Aadan Dirir oo ka howlgala magaalada Caynab gobolka Saraar uga howlgalay TV-ga caalamiga ah ee Somali Channel wariyaha waxaan leenahay qofka bini'aadanka ay 48 saacadood buu xaq u leeyahay inuu maxkamad la'aan iskaga xidhnaado meel waxaan leenahay wariyaha xorriyadiisa loo soo celiyo way dhaaftay 48 saacadood maanta waxay maraysaa waa maalintii 9aad baan filay waan ognahay warbaahinta waa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin wariyuhu waa qof bani aadam ah waanu khaldami karaa waana lagu khaldami karaa runtii anagu waxaan aaminsanahay in wariyaha cadaaladda uu la mariyo maxkamadda la soo istaajiyo hadduu khalad leeyahayna khaladkiisa lagu qaado hadaan lahayna in xorriyadiisa loo soo celiyo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh runtii shirkan jaraa'id ee maanta aan halkan isugu nimi isla markaana ah mid aan